الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا waxaan kaga hadlaynaa islaamka iyo nolosha bimacnaa yani islaamkeenu in uu ku wada jiro nolosheena oo dhan oo meel uu ka baxsan yahay aysan jirin taasna waxa keenaysa inaan uga hadalno waxa laga yaabaa dadka yani fahamka islaamka laga haysto in uu yani meelaha qaarkood ay dadku ku koobaan oo haddii islaam ba la yiraahdo ama laga hadlo la yiraahdo ay noqonayso in ay yani ama salaad ama soon ama xaj yani arrintan la yiraahdo shacairta cabudiyada inay islaamka u yaqaanaan laakiin taasi waxa diidaysa oo inayna qaybtaas oo kaliya in islaamka ay ahayn salaada markaynu tukanayno ducada aynu ku bilaabano ama aayada quraanka ah oo ayni wajjahtu wajhi lillahi fadara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati halkan marka noloshayda wa mahyaaya waa noloshii oo dhan wa mamati geerideeda lillahi rabbil alamin ilaahi ayaa iskale marka nolosha oo dhan ilaahi baa iskale waxa raba marka nolosha meelaha kala duwan ee ay nolosheenu ay u qaybsan tahay oo arrimo bulsho haday tahay iyo arrimo siyaasadeed haday tahay iyo noocay dooni ba ahaatee in uu islaamku ka maqnaanin oo meel kasta oo la joogay sida islaamku uu rabo in meeshaasi lagu ahaado in lagu ahaado ayaa loo baahan yahay marka islaamkeenu sida uu yahay oo meel walba ugu jiro yani waxyaabo waxa jira nafta bin aadamka hadii aan la farin xataa oo samee aan la dhihin yani baahida ay iyadu u qabto ay u sameyn lahayd oo tusaalaan in wax la cuno iyo in wax la cabo iyo in maxay ahayd reer la yeesho oo yani dadka waxyaabaha ku abuuran yani ay gutaan yani waa wax dadka ilaahay uu ku abuuray oo yani hadaan aayad loo soo dejina xataa ayagu ay iska yani baahida haysa daraadeed ay u sameyn lahayn markaas hadana waxa la kulu washrabu cuno oo caba marka saas loo leeyahay macnaheedu waxay tahay hadii qofkii waxna uu cuno waxna uu cabo waxa uu saa u yeelayana yani ay tahay yani noloshaada ha ku sii socoto hadii aan wax la cunin waxna la cabin noloshu ma sii soconayso noloshu intay sii socotana ilaahay aad ku caabudid oo aad diinta ugu khidmaysid markuu niyeysto cuntadii iyo cabitaankii ayaa waxay isu bedelayaan cibaado ayay isu bedelayaan oo qofkii ajir ayuu ka helayaa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo tilmaamayo qof ayaa cunto cunaaya markaasuu ilaahay ku mahadinaya ama cabid ayuu cabaaya markaasuu ilaahay ku mahadinaya markaas ilaahay mahadintaasi oo cuntadii iyo cabitaanku ilaahay ku mahadiyay ayaa ajir looga qoraaya asagana is anfacay oo hada naftiisi ayuu nooleeyay oo haraadkii iyo gaajadii ayuu ka bi'iyay marka islaamkeenu waa sidaas aayadaha quraanka ah ayaa waxa arkaysaa hal aayad oo wixii nolosha oo dhan ahayd ka wada hadlaysa haday ahaan lahayd xagga aqeedada haday ahaan lahayd xagga mucaamalaadka haday ahaan lahayd xagga cibaadaadka yani haday ahaan lahayd xagga akhlaaqda dhinac walba dhan ayaa hal aayad ayaa lagu soo koobaya quraanka ku jirta markaas intaas oo dhan marka la soo sheego yaa waxa lagu soo khatimayaa dadka iimaankooda ama islaamnimadooda kaga run sheegay waa kuwa sidaas u qaatay diinta oo suuratul baqara ilaahay wuxuu ku leeyahay laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirra man aamana billahi wal yawmil aakhir wal malaa'ikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آيداس يعني قيب هو حلقها الله عقيدة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين انتاس وعقيدتي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب انتاسنا ونحريستي معاملاتي وأقام الصلاة وآتى الزكاة وشعائرتي تعبدي وصلاتي الزكاة وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يعني حاجاسنا وبلنتي أخلاقي يدك سوى رغم الهاين intaas oo dhan markii laga soo hadlay oo isku hal aayada oo aqeedadii la sheegay oo mucaamalaadkii la sheegay oo cibaadaadkii la sheegay oo akhlaaqdii la sheegay ya ilaahay wuxuu yiri ulaa'ika alladina sadaqu wa ulaa'ika humul muttaqun yani waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah in islaamka sidaas guud ahaana loo qaato hadii la qaadan waayo oo yani qayb laga dhigo oo yani qaybna laga tago qaybna la qaato waxayna qabanaysaa reer banu israa'iil aayadii ilaahay uu ku yiri afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd يعني كتابك قارنا من رمينيسان قارنا مديديسان إنما مؤمنين هدانها إلهي وحوين أمري يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إسلامك أصوى قال سكنا ميسترا بمعنى كل جس وذقاته يعني مالنا هكتجنا مالنا هدافنا كتابك إلهي وحوسه دجين نرش إن الغماريو وحول لمد يهي والله مثل على ذلك سيلو فهمسيو
يعني qalabka aan isticmaalayno ama meediyaha aan isticmaalayno ama telefoonada aan isticmaalayno ama baabuurta aan isticmaalayno ama qasaalada aan isticmaalayno adeeg tuuliska ama qalabka aynu ku dhaqanno oo dhani markii la soo saaro warshadii soo saarta waxay soo raacaysaa buugii habka loo isticmaalayo iyo hadduu kaa xumaado habkii loo cilad bixin lahaa iyo waxa uu yahay ka sheekaynaysa oo tafaasiil ah noloshan aynu ku noolnahay ilaahay wuxuu soo raaciyay kitaabkan quraanka si wixii kasta oo aan u baahano aan xal uga helno saasa ilaahay wuxuu noo yiri inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam quraankan wuxuu dadka ku hanuuninaya sida ugu haboon ee ugu fiican hadda inagu wadankeena iyo duruufaha ka jiray dadku waxay aad yaani ugu baahan yihiin nabadgelyo inay helaan nicmada markii lagu jirin aad looma dareemee markii ay dhaaftay ay dadku aad u dareemaan nabadgelyadaasi sida loo sugo oo nabad loo ahaado haddii sharciga ilaahay loo maro yani qof kala taaban laha ma jirto maxaa yeelay sharciga ilaahay ma yaqaano kana weyn iyo kana yar iyo kana macna yani oo kana la deynaya iyo kan ma jirto yani dadka oo dhan ayuu khuseeyaa cid ka weyna sharciga ma jirto yani haddii doonto xagga mas-uuliyadda la kala qaadayo ha kala duwanaato oo xagga da'da haddii la doono marka qaarkood ilmaha yaryarka oo kale axkaam gaar ah loo sameeyo dadka waaweyn axkaam kale ha loo sameeye laakiin ugu dambays markii la fiiriyo islaamku dadkan oo dhan ayuu u soo degay in lagu dhaqana ay tahay marka haddii qaar la qaato qaarna laga tago waa lagu dambaabaya qur-aanku wuxuu ilaahay nagu leeyahay wa an ixkum baynahum bima anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk iska jir inay dadku kaa fidneeyaan wixii ilaahay uu soo dejiyey qaar ka mid ah haddii qaar ka mid a lagaa fidneeyo yani waa wixii o dhan oo la fidneeyo oo kale ayay la mid noqonaysaa marka saas daraadeed lama ogolo in qaarna laga qaato qaarna laga tago waxaa rabaa kulligii in la wada qaato islaamku ma kala qaybsamaayo wayna isku daayaan dadka aan diinta jeclayn ama aan diinta ogolayn in qur'aanka meelaha markaas hawadooda aan la soconayninoo cubuudiyadooda muujinayo oo inay isdhiibaan caddaynaysa inay dhahaan qur-aanka meelahan wuu ka adag yahay axkaam adag baa meelahan kaga jirta ha laga leexdo ama si yani wax cusubna maahan qur-aanku markuu soo degaayeyba saasaa lagu bilaabay oo dadkii habnooleedkooda si u qaabaystay sidaas in laga duwo oo si kale loogu dhigo way diidanayeen maxaa yeelay habka ay dadku u samaysteena waxay ahayd in dabaqaad dadku ay u qaybsan yihiin dad sare oo madax ah oo maalqabeenno ah iyo dad hooseeyo ay ku amarku taagleeyaan qur-aankan markuu imaaday dadkii oo dhan ayaa la simay oo ma jirto cid kale awood u sheegan karta dadkii waxay noqdeen annaasu sawaasiyatun ka asnaan ilmisht markaas waxay isku dayeen dadkii markaa joogay ee adduunyada hab u qaabaystay oo habka ay wax u samaysteen in laga guuro ka cabsanayaan inay nabiga ku yidhaahdaan qur-aankan ama ku kala keen oo kan hadda waan aragna waana ku qancila aan ahay ku kala keen ama meelaha aanan rabin ayaan kuu sheegaynaa meelahaas ka bedel inta kalena waan ogolnahay waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana i'ti biqur'aanin gayri hada aw badilhu qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya waxay yidhahdaan ama qur-aankan yani mid kale keen ama naga bedel meelaha qaarkood waxaad ku tidhahdaa layidhi aniga iima ahaanin mana dhici karto an ubadilahu min tilqaa'i nafsi inaan naftayda xaggeeda ka bedelo in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya wixii la ii soo waxyooday ee la ifaray un baan raacayaa taasuu ilahay inagana in amrayo ilahay wuxuu ina leeyahy fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraatin mustaqim marka nabiga lagu yidhi yaa waxaa ilaahay kitaabkaasaa laidiin soo dejiy laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun marka kitaabkaasi in lagu wada dhaqmo oo nolosheenna oo dhan yani ay noqoto nolol yani qur-aanka ku salaysan taasaa waxaa lagu helaa akhlaaq wanaagsan nabiga sal allahu alay wasalam oo akhlaaqdiisu ay aad u qiimo badan tahay oo ilahay uu ku ammaanay oo layidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim markii la weydiiyey umulmuminiina caaishana habdhaqankiisu waxay tiri habdhaqankiisu waa qur'aanka un bimacnaa haddii waxyaabaha qur-aanku inaga celinaya aan ka joogno waxyaabaha uu ina farayna aan yeelno oo nolosheenna oo dhan oo islaamkaas uu ku qaabaysan yahay wax dhibaata oo dhacaysa ma jirto tusaale ahaan maalan mararka qaarkood dadku waxay sameeyaan waxbaa qof baa wax sheega qiila waqaala markaas iyadoon la hubsanin yaa laga yaabaa dadkii waxaas laga soo sheegay in dhibaato la gaarsiiyo markaasa qofkii marka dambe wuu ceeboobayaa oo war waxaas maxaad u samaysay markaasuu le waan khaldamay sidaas ma u malaynay si xun baa wax laygu soo sheegay qof wuxuu noqonaa marka dhacdciisu uu badan yahay laakiin qur-aanku wuxuu ina amrayaa markii war lasoo sheegaba inaan markiiba lala boodine bal horta la iska hubsado yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu yani caddaysta oo warkan hubsada macnaa saas waxaa loo yeelayaa si ayna idinku dhicin an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin in dad aan waxba galabsanin intaad kula kordhacdaan hadhow mar dambana aad ka shalaysaan marka haddii wax la hubsado deganaansho lagu dadaalo
wax kasta oo la soo sheegay aan lala boodin ee horta bal iska hubiyo xaqiiqanimadkiisa iyo in kale hadday dhaqaalo tahay dhaqaalihii islaamka iyo sida uu qabay oo xaaraanta la iska ilaaliyo ribada la iska ilaaliyo qishka la iska ilaaliyo qararka iyo beeca la isku kadinaya la iska ilaaliyo oo qof walba wixii xaq ah ee asaga xaggiisa jira uu soo celiyo wixii waajib ee saaran uu ka soo baxo qofkii wuxuu noqonayaa nolosha nolol hagaagsan hadday duruuftu keento inay dadku isku qasmaan oo dadkii ay dhibaato badan ay la imaadaan oo la isku xadgudbo oo la isdulmiyana islaamkeenu xal ayuu ka keenay wuxuu yidhi yani markay dhibaatooyinka ay dhacaan oo weliba dhibaatooyinka intii la tilmaamay layidhi dhibaatadii ka dambaysay way kasii daran tahay ilaa midii hore laga iloobo oo la yidhaahdo middan baa ugu daran tanaa lagu halaagsami doonaa oo haddana laga baxo haddaba saasoo kale markay dhacdo nebigu wuxuu yidhi qofkii raba in uu jannada la geliyo naartana laga fogeeyo geeridiisa ha u timaado asagoo ilaahay aakhira rumaysan dadkana ha ula yimaado sida uu jecel yahay in asaga loola imaado waa habdhaqan wanaagsan mararka qaarkood maamulada iyo dadweynaha iyo mucaarado iyo waxbaa mararka qaarkood ka caaya saasoo kale markay dhacaan nabiga sal slam waa la weydiiyey oo waxaa rasuulka ilaahayo ka waran haddii ayna qabsadaan madax waxa ayagu ay naga rabaanna naga qaadanayaan wixii annaga aan ka rabnay bulsho ahaanna aan dib noogu soo celinayn maxaadna amraysaa intuu ka jeedsaday si asoo yani inkirsan mowqifkaa sidaas oo kale ah in ay ummad muslima ay gaarto laakiin adduunka wax walbaa dhici karee intuu ka jeestay markii dambe ayaa wuxuu ku yidhi qofkii su-aasha weydiinayay hadday sidaas ay dhacdo tu'adduuna alxaqa aladii calaykum watas'aluuna allaha aladii lakum waxaad gudanaysaan xaqa idinka idin saaran ka idinka idinka maqanna ilaahay baad weydiisanaysaan intaas waxaa loo yeelayaa in wixii o dhan intii isku dhex yaaciyo marka dambe fidno meel ay ku dhammaata yani aan la garanaynin inay dadku lagu hadla galaan marka qofkii wax dareemaayo ay wax ka maqan yihiin haddii asaga arrimihiisa wax ku saabsan iyo danihiisa iyo maslaxa ay tahay hadduu iska dhaafo oo iska dhaafaasi uu keenaayo inay ummaddii faa'iidaysato asaga waxbaha ka maqnaada hadduu doonee inuu iska sabra ayaa la rabaa waxbaa iga maqan daraaddeed inuusan wax u hadlaynin qofkan wax ku maqan yihiin ee asaga wixii saaraa aan ka soo baxaynin ama maamul ha sheegto ama wax kale ha sheegtee asaga ayaa dhibaato qaba maxaa yeele asagaa loo sabray marka diinteenna islaamku meel ay dhaafaysa ma jirto nolosheenna oo dhan ayaa waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo dhinacay dooniba ha ka ahaato xagga arrimaha bulshada ha ahaato oo dadkii inay meel ka soo wada jeedaan waxa lagu kala fiican yahay alla kacabsiga inay tahay ha ahaato arrimaha dhaqaalaha ha ahaato arrimaha siyaasadda ha ahaato caadaadka iyo dadka waxyaabaha ay qabsanayaan meel islaamkan uu dhaafayo ma jirto marka saasaa waxaa loo yidhaahdaa islaamku waa noolal yani nolol kalena ma jirto oon islaamkan aan ahayn ciddii wax kale nolol ka raadisana hadday maalmo xataa nolol markaas ay samaysato ay kusii socoto waa nolol nihaayadeedu ama dhammaadkeedu uusan natiijo lahayn waxaa natiijo leh nolosha ku qaabaysan diinta islaamka adduunkana cize iyo sharaf ayaa lagu noolaadaa man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiican aakhare markay noqotona qofkii mu'min soo ah oo cizaas ku soo noolaa meel wanaagsan iyo janno ayuu ilaahay gelinayaa marka qur'aankeenna iyo islaamnimadeennu adduun iyo aakhare waa inoo toosinaysaa waxaa rabaa marka inaan ayagaas aan ku dheganaano oo islaamkeennaas aan xoojisano oo yani asagaas ayaa ina midayn kara oo qof walba asaga ayaa weyga uu leeyahay iyo waxa laga raba u sheegaya waana dastuurkii ilaahay uu adduunkan ugu talagalay in lagu dhaqo dad gaara uma soo degin wuxuu usoo degay biniaadamkao dhan biniaadamkao dhan hadday wada qaataan oo isku maareeyaanna adduun iyo aakhiraba way liibaanayaan dadka mu'miniinta ah oo innaga haddaynu soomaalinahan aan ka mid nahayna rumaynta aan kitaabka rumaynay ha inagu keento hana inagu qasabto waxa kitaabka uu sheegayo inaan nolosheenna aan ku dabaqno nolosheennana ay noqoto qur'aankaasi sida uu sheegaayo inagu oo fulinay saasa waxaan ku noqonaynaa sidii musxaf dhulka ku socdo oo kale sida asxaabtaba loogu tilmaamay inay ahaayeen musxaf dhulka socdo oo kale bimacnaa wixii uu amro musxafku ama qur'aanku way yeelaayeen wixii uu ka reebana way ka haraayeen ayagoo aan ka taradudaynin saasay marka cize iyo sharaf ku yeesheen adduunkii markaas ay joogeenna ay ku maamuleen aakharana natiijo fiican iyagoo fadli badan la tegey ayay baxeen innagana saasaa laynaga rabaa ummaddii hore wixi ay ku liibaantay ayay ummaddan dambana ku liibaanaysaa duruufahan ina haysta iyo dhibaatada inagu dhacdayna waxaan uga bixi karnaa sidii hore ay uga baxeen ummadihii hore oo ahaa in dadku ay masaajidada ku xirmaan oo qur'aanka iyo diinta iyo cibaadaadka ilaahay masaajidkii iyo nuurka laga hogaamiyo oo bulshadu masaajidka iyo mixraabka wixii ka soo baxaya iyo halkaas inay ay ku xirnaadaan walaalana ay ahaadaan oo walaaltinimadii iyo isku xirnaanshihii iyo bulsho isu kaalmaysa in la noqdo wixii ummaddu ay ku heshiiso oo ay wada dhigtaanna wasulxu jaa-izun bayna almuslimiin oo maalan ay ka mid tahay xukunka iyo sida loo qaybsanayo iyo xilliga la isdooranayo iyo sida la isu dooranayo wixii ummaddu ay ku heshiisana sharci ayay noqdaan almuslimuuna calaa shuruudihim ayaa la yidhahdee intaa haddii qof walba dhinaciisa uu ka ilaaliyo nolol wanaagsan ayaa lagu noolaanaya islaamkuna saas ayuu inoogu baaqaya oo ina faraya ilaahay subxaana wa tacaala haynaga dhigo kuwii qur'aankaas ka faa'iidaystay oo noloshooda ku dabaqay oo cize adduunyo iyo cize aakhiraba ku helay waad ku mahadsantihiin idinkana la socodka barnaamijka aad iyo aad wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu